السلام عليكم كسو دوادا كانالك عبدالعزيز بورلي موضوعينا مانتانا waxaynu kaga hadli doonaa basaaskii magacyada badnaa George Blake waxa uu ku dhashay magaalada Rotterdam ee wadanka Netherland sanadkii 1922 bishii November 11keedii waxa uu haystay dhalasho Ingiriis ah. George Blake waxa uu ahaa basaas laba wajiile ah oo laba dawladood u wada shaqeeya. waxa uu xubin firfircoon ka ahaa sirdoonka Ingiriiska ee dalka Jarmalka ka howlgalayay intii uu dagaalkii labaad ee adduunku socday. George waxa uu ahaa nin aaminsan nidaamka shuuciga ah, sidaas darteedna waxa uu iyagana si daacad ah ula shaqeynayay kana tirsanaa sirdoonka Ruushka. dawladda Ingiriiska ayaa waqti dambe ka war heshay arrintaas oo xidhay George, waxaana la soo istaajiyay maxkamad ku xukuntay 42 sano sanadkii 1962. waxaase yaab noqotay oo dunida waqtiga ka yaabisay markii 22 October sanadkii 1966 Blake uu ka baxsaday jeelka kadib markii uu jabiyay daaqad qolkiisa ku taalay waqti fiid ah intii u dhaxaysay 6 ilaa 7. waqtigaasi maxaabiista kale ee ciidanka waardiyaha ahiba waxa ay daawanayeen filim toddobaadle ah, waxaana si qarsoodi ah ugu gudbay dalka Jarmalka bari. rag ay saaxiib ahaayeen ayaa arrintaas ka caawiyay halkaasi oo uu uga sii gudbay dalka Ruushka oo la sheegay inuu weli ku nool yahay. waxa uu la baxay magacyo kala duwan, waxaana uu ahaa basaas magacyo iyo midabyo badan leh. tusaale ahaan Richard Sodek waxa uu ahaa magac caan ka noqday dunida basaasiinta, laakiin aan weli wajigiisa cidina aanay aqoon. dalka Japan waxa uu kaga shaqeyn jiray inuu yahay saxafi Jarmal ah. waxa uu ahaa mid aad u furfuran, waxayna taasi keentay inuu xidhiidh wanaagsan la samaysto mas'uuliyiintii Japan, kuwaasi oo ay soo jeedatay maqaaladii iyo qoraaladii xiisaha iyo quruxda badnaa ee uu ka qori jiray wargeysyada, iyagoo aan dareemayn inuu yahay basaas shuuci ah oo Ruushka u shaqeynaya. waxaana uu uga faa'iideystay inuu Ruushka caawimo badan ku siiyo arrimahaas. inta ayaynu ku soo koobi doonaa basaaskii magacyada badnaa.